kulankan oo lagaga hadlayay sidii loo baabi lahaa isla markaasina lagu dhiirigelin lahaa ganacsatada qurba joogga iyo sidoo kale dadweynaha magaalada Elafweyn oo ay soo qaban qaabiyeen maamulka iyo waxgaradka degmada Elafweyn ayaa ka qabsoomay xarunta dawladda hoose ee magaalada Elafweyn waxaana ugu horeyn halkaasi hadalka isaga daba noqday Maxamuud Axmed Liibaan Suldaan Saciid Yuusuf Ducaale Axmed Dayax Weerar Caaqil Cabdi Jaamac Cabdi Gaas oo dhamaantood si isku mid ah hoosta uga xariiqay sidii guntiga dhiisha uga dhigi lahaayeen barnaamijka dhaqaajinta iyo dhaqaalaha ururinta horta leh ee 20 kiiloomitir ay qaadatay degmada Elafweyn sidoo kalena ay ku dadaali doonaan inay 20 kiiloomitir ay qaadatay degmada Elafweyn ee kamid ah wadada isku xidhi doonta gobolada Togdheer iyo Sanaag ay ku dari doonaan wax intaasi ka badan waxaana halkaasi lagaga dhawaaqay gudiga guud ee ka hawlgali doona dhaqaalaha ururinta dal dibad degmo tuulo ee miyi iyo magaalaba leh oo ka kooban 25 xubnood oo isugu jira qurba joog dal joog iyo sidoo kale uqaal iyo salaadiin maanta gobolkeena waxa looga haajiray oo dad badan uga tageen wada la'aan khayr badan oo soo gaari lahaa wuxuu uga joogsaday wada la'aan anigu waxaan ku garaadsaday iyadoo wadada la hadal hayo hadda kontana waan ku dhawa haddaynu maanta markaa horta fursadii wadada helay waxa loo baahan yahay inaynu kulligan ka qayb qaadano ilaa ardayga nus saacihiisa ilaa qofka baac mushtarka ilaa xoolo dhaqatada waxaan leeyahay degmada Elafweyn waa degmo aad u ballaaran waa degmo wadadu ay dhex marto degmooyinka ugu badan ayay noqonaysaa wadadu degmooyinka ay dhex marto waa garanaysaa waxaynu u baahanahay inaynu guryaha u iibino waxaynu u baahanahay inaynu dahabka furno waxaynu u baahanahay inaynu beeyada faraasiladdiiba kiilo ka qaadno waxaynu u baahanahay inaynu isku soo baxno waxaynu u baahanahay inaynu si xoog aynu goyno waxa iyaguna kulankaasi gabagabadiisii soo afmeeray gudoomiyaha degmada Elafweyn Baasha Xandulo Warsame gudoomiye ku-xigeenka degmada Elafweyn Salmaan Yuusuf Diiriyooda waa iyo xogayaha fulinta dawladda hoose Saciid Maxamed Ogle Saciid Xasan oo iyaguna tilmaamay si isku mid ah u tibahay hoostana u xariiqay sidii ka maamul ahaan ay kaalinta ugu weyn uga qaadan lahaayeen dhaqaalaha dhisidda iyo sameynta wadadaasi isla markaasina ay 17 xildhibaan ee golaha deegaanka degmada Elafweyn ay mid waliba ku xukumi doonaan 1 kiiloomitir wadadaasi ah waxayna halkaasi kaga dhawaaqeen xadiga lacagta ay shakhsi ahaan ay ku darsan doonaan balse ay sameyn doonaan munaasabad kale oo qof waliba ku dhawaaqi doono qaadaanka dhisidda wadadaasi waxaan ku dhawaaqayaa madasha shakhsi ahaan $1 ana waxaan ku dhawaaqayaa $500 anigu $1,500 baan ku deeqayaa hadii ilaahay waana Cabdiraxmaan Ismaaciil Saciid telefishinka qaranka Soomaaliland Elafweyn